soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan barnaamijka aynu gabagelaynaa xagga Gaza iska caabinta Gaza ayaa waxay gacanta ku dhigtay nin la sheegay inuu la shaqeynayay Israel iyagoo ka qayb ahaa ninkaasi shirqolo lagu qarijiyay in badan oo kamid ah hogaamiyaasha iska caabinta ayada la magac baxday amniga iska caabinta marinka Gaza ayaa shaaca ka qaaday inay fulisay xukun dil ah oo lagu riday inay sheegtay in lagu helay la shaqeynta sirdoonka Israel iyo kulug lahaanshiyaha howlaha amniga horseeday dilka Falastiiniyiin iyo bartilmaameedsiga xubno muhiim ah gaar ahaan hogaamiyaasha kooxaha iska caabinta uu ku jiro taliyihii guud ee guutooyinka Al-Qassam Ciisediin Al-Xadaad bayaan ay hay'addu soo saartay ayaa lagu sheegay in xukunka lagu fuliyay eedeysanaha kadib markii sida ay sheegtay la dhammaystiray dhammaan habraacyadii baaritaanka waxaana ay ku eedeysay inuu sababay xasuuqyo dhowr ah intii uu socday dagaalka Gaza islamarkaana uu ka qayb qaatay howlgallo lagu qaarijiyay hogaamiyaal ka tirsan kooxaha iska caabinta uuna ugu dambeeyey dilkii Ciisediin Al-Xadaad 16 bishii May Xamaas ayaa xaqiijisay geerida taliyihii guud ee guutooyinka Al-Qassam Ciisediin Al-Xadaad kaasi oo lagu dilay duqeyn Israa'iil ay ka fulisay magaalada Gaza tani waa masiirka dadka la shaqeeya cadowga ayaa lagu yiri bayaanka amniga iska caabinta iyadoo sidoo kale lagu sheegay in fulinta xukunkan ay qayb ka tahay dabagalka dadka lagu eedeeyo inay la shaqeeyaan Israa'iil waxaana ay ku digtay in tani ay tahay masiirka wakiilada la shaqeeya gumaysiga iyadoo ugu baaqday dadku ku tilmaamtay inay jidka ka lumeen ay soo dhiibaan iskuna dhiibaan laamaha ammaanka ee iska caabinta ayna dib ugu soo laabtaan waxay ugu yeertay safka qaranka hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka lagu eedeeyo la shaqeynta Israa'iil ay matalaan naftooda oo kaliya falkoodina ay ka hor imaanayaan doorka qoysaska iyo beelaha Falastiiniyiinta ee ilaalinta midnimada bulshada iyo ka hortagga qorshayaasha gumaysiga Israa'iil 12 bishii Juun ilaa May oo ku sugan Gaza ayaa u sheegay madasha Guardian ee amniga iska caabinta in laamaha ammaanku ay qorsheynayaan inay baahiyaan muuqaallo ay ku jiraan qorsooyin laga duubay dad lagu eedeeyay inay la shaqeeyaan Israa'iil isla markaana ay fulin doonaan ciqaabo ka dhan ah dadka lagu eedeeyo falal ay sheegeen inay sababeen dhimashada tiro Falastiiniyiin ah intii uu socday dagaalka bishaasina waxay intaas ku dartay in baaritaanka lagu sameeyay laba eedeysana ay muujiyeen inay tilmaamo ka heleen sirdoonka Israa'iil kuwaasi looga gal lahaa inay huriyaan foodo hubaysan iyo falal kicin ah oo laga fuliyo gudaha marinka Gaza sida ay sheegeen ilaa amni oo ku sugan Gaza intii uu socday dagaalka Israa'iil waxa ay kordhisay ku tiirsanaanta shabakada dadka la dhex shaqeeya si ay u fuliyaan howlgallo sirdoon iyo amni oo gudaha Gaza ah kuwaasi oo ka mid yihiin ururinta xogta ila socodka dhaqdhaqaaqa hogaamiyaasha iyo xubnaha iska caabinta si loogu diyaariyo bartilmaameedsigooda ilahaasi waxay sidoo kale xuseen in marar hore la xiray dad lagu eedeeyay in la shaqeeyaan Israa'iil halka qoysaska Falastiiniyiintuna ay marar kala duwan iska fogeeyeen xubnaha lagu eedeeyay in Israa'iil la shaqeeyaan inay ku lug leeyihiin howlo la xiriira Israa'iil sida ay ilahaasi sheegayaan xaaladda bini'aadantinimo ayaa aad u sii xumaysay burburkii adeegyada nolosha ka jira marinka Gaza intii uu socday dagaalka iyadoona abuurtay duruufo ay sirdoonka Israa'iil iskugu dayayaan inay uga faa'iidaystaan ballaarinta shabakadaha ay ka qortaan gudaha Gaza iyo xoojinta dhaqaaqadooda amni ee marinka Gaza waa tahay markana guud ahaan dunida ayaa markhaati ka noqotay dagaal kale oo sababay dhimasho xad dhaaf ah gaar ahaan qaaradda Yurub ayaa markhaati ka noqotay kadib dagaalka labaad ee dunida dagaal kale oo sababa dhimasho iyo burbur baahsan warbixin ay soo saartay xarun cilmi baaris oo Mareykan ah ayaa muujinaysa in khasaaraha ciidamada ay ka dhashay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu galay sanadkiisii shanaad bishii Febraayo ee la soo dhaafay ay tirada ka badatay isla markaana uu dhaafay khasaaraha nafeed ee ka dhashay 2 milyan oo isugu jira dhimashada dhaawac iyo kuwa la laayahay warbixinta ay daabacday xarunta daraasaadka istiraatiijiyadda caalamiga ah ee Mareykanka ayaa sheegtay in tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Febraayo ee sanadkii 2022 dhinaca Ruushka ay ka dhinteen 400,000 ilaa 450,000 oo askari guud ahaan khasaaraha ciidamada Ruushka gaar ahaan isku darka khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo askarta la laayahay ayaa lagu qiyaasay inay gaartay ama dhaaftay 1.4 milyan dhanka kalena warbixintu waxay sheegtay in muddadaasi gudaheed ciidamada Ukraine ay waayeen 125,000 ilaa 150,000 oo askari oo la dilay halka 525,000 ilaa 625,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarada
warbixintu waxay intaasi ku dartay in tirada askarta ruushka ee ku dhintay dagaalka Ukraine ay 4 jeer ka badan tahay tirada askarta Mareykanka ee ku dhintay dhammaan dagaaladii oo Mareykanku galay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka isla markaana ay ka badan tahay 9 jeer tirada askarta ruushka ee ku dhintay dhammaan colaadihii uu galay tan iyo dhamaadkii dagaalkaasi warbixin kale oo isla xaruntan ay soo saartay bishii Janaayo ayaa lagu sheegay in khasaaraha guud ee ciidamada ruushka iyo Ukraine uu gaari karo ku dhawaad 1.8 milyan oo qof isla markaana la filayo inuu kor u kaco 2 milyan xilliga guga waqtigaasi xaruntu waxay qiyaastay in ruushka uu waayay 1.2 milyan oo askari kuwaas oo ku jiraan 325,000 oo la dilay muddadii u dhaxaysay Febraayo 2022 ilaa Diseembar 2025 sidoo kale waxay qiyaastay in khasaaraha ciidamada Ukraine uu dhaxeeyo 500 ilaa 600 oo kun oo askari qiimaha ay ka yihiin ilaa 140,000 oo la dilay tan iyo markii dagaalka uu bilowday ruushka sida lagu sheegay xogta macadka daraasaadka dagaalka ayaa waxa uu la wareegay qiyaastii 19% dhulka Ukraine marka lagu daro jasiiradda Crimea oo ku darsaday ama ka xoogay Ukraine sanadkii 2014 muddooyinkii ugu dambeeyayna weerarada ay isweydaarsanayeen labada dhinac ayaa sii xoogeysanayay iyadoo howlgallada militari ay diiradda saarayeen bartilmaameedsiga xarumaha muhiimka u ah sii socoshada dagaalka halka dagaalada caalamiga ah ee ku aadan in xal loo helo dagaalkan oo lagu soo afjiro ay weli ku guuldareysanayaan inay gaaraan heshiis rasmi ah oo dagaalkan lagu soo dhamayn karo waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socota warbixin ku saabsan Yurub oo qarka u saaran dhuminta qiyamka himilada nabadda ee lagu dhisay kadib dagaalkii labaad ee dunida haddaba maxay tahay sababta ugu weyn ee Yurub u weyn karto nabaddii ay ku naaloonaysay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waan eegi doonaa warbixintaasi balse marka hore aynu ku hakano qadar xayawaan oo ka dhigo meelkaaga waranka waa hagaag haatan aynu u talaabno sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka qaarada Yurub ayaa aad waxa looga shaki qabaa in isku diyaarinayso dagaal cusub oo ka dhan ah Ruushka kaasi oo u muuqanaya inuu noqon doono mid kala dhantaala nabadii in badan ay ku naaloonaysay qaaradan qoraaga lagu magacaabo Ricardo Martinez ayaa qaba in Yurub oo ah qaarad isdhexgalkeeda uu ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka uu ku dhisnaa ballanqaadka nabad waarta ayaa siisa soo taraysa wuxuu uga fogaanayaa himilooyinka lagu aasaasay ee ku aadanaa in nabadda la ilaashado maqaalkiisa oo lagu daabacay mareegta New Orient Magazine Martinez ayaa waxa ku doodaya in hogaamiyaasha Yurub ay qaarada u jihaynayaan dhinaca tartan military loolan hub urursiiyay sidoo kale iska horimaad lala galo Ruushka oo ifafaaladiisu ay dhowdahay halkii ay ka ilaalin lahaayeen mabaadi'da diblomaasiyadda iyo iskaashiga ee saldhigga u ahaa mashruuca nabadda ee Yurub sida uu sheegay Martinez isdhexgalka Yurub waxa uu ka dhashay burburkii ay sababeen laba dagaal oo waaweyn isagoo ahaa ay hal ujeeda kaasi oo ah in laga hortago dagaal kale oo ba'an oo ka dhaca qaarada mashruucani waxa uu doonayaa inuu bedelo siyaasadda ku dhisan awoodda ciidan isagoo ku bedelaya iskaashi tartanka militariga kuna bedelaya tartankaasi isku tiirsanaan dhaqaale oo dalalka dhex marta halka cabsigelintana lagu bedelayo diblomaasiyad la isku kaashado hase yeeshee waxa uu ku doodayaa in qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee maanta ku jira saaxadda Yurub ay u muuqdaan kuwo diyaar u ah inay ka tanaasulaan dhammaan ilaalinta mabaadi'daasi iyagoo doorbidaya sheeko cusub oo salka ku haysa iska horimaad iyo isku diyaarinta military ee dagaal lala galo dhanka Ruushka Martinez waxa uu xusay in doodaha ku saabsan Ruushka ay hadda dhaafeen taageerada difaaca ee Ukraine waxaana uu sheegay in codad siyaasadeed oo saameyn leh oo ka kala tirsan garabyada muxaafadka iyo kuwa socodka ee Yurub ay sii kordhiyaan kuwaasi oo soo bandhigaya in isku horimaad toos ah oo lala galo Ruushka uusan ahayn oo keliya mid suurtagal ah balse mararka qaar ay lagama maarmaan noqon karto arrintaasi sida uu qabo isbedelkani waxa uu ka dhigan yahay ka leexashada halis oo looga leexanayo dhaqankii Yurub ee ku saleysnaa ka hortagga colaadaha inay mar kale ka dhacaan qaarada qoraagu waxa uu ka digayaa in hadallada dadweynaha ay xoogga saaraya suurtagalnimada dagaal dhow kordhinta miisaaniyadaha difaaca iyo habeen ballaaran oo ay ka gudbeen fikradii cabsigelinta una gudbeen mashruuc juqraafi siyaasadeed oo ballaaran waxaana uu isweydiinayaa in Yurub ay ku dhaqmayso xisaab istiraatiiji ah oo macquul ah mise inay fikrado siyaasadeed iyo dareen sii xoogeysanaya oo ka dhan ah Ruushka ay ka hormarinayaan
xaqiiqooyinka juqraafi siyaasadeed ee jira isagoo maqaalkiisa ku sharaxaya arrinta fikradda loo yaqaano jahwareerka amniga taasi oo in tallaabooyinka difaac ee dhinaca qaada ay dhinaca kale u fasirtaan isku diyaarinta weerar iyadoona dhinaca qaada tallaabooyinkaasi kan kale uu arki karo cadaawad inkastoo dowladaha Yurub ay kordhinta qarashaadka difaaca iyo casriyeynta ciidamadooda ay ku tilmaamayaan inay yihiin tallaabooyin difaac oo lagama maarmaan u ah ilaalintooda ruushka ayaa waxaa laga yaabaa inuu arko inay yihiin diyaargarow ay ugu diyaargaroobayaan dagaal ay isaga la galaan mustaqbalka sida uu qabana tani waxay dhalinaysaa wareeg kalsooni darro iyo xamaasad milatari oo sii kordhaysa taasi oo yareynaysa fursadaha diblomaasiyadda ee qaaradda isagoo intaasi ku daray in halista ugu weyn aysan qasab ahayn ay ka timaado hogaamiyayaasha Yurub oo si ula kac ah dagaal u doonaya balse ay ka timaanayso ama ay ka imaanayso aaminsanaantooda sii kordhaysa iskahorimaad lala galo ruushka inuu yahay wax laga baaqsan karin mustaqbalka Martinez waxa uu tusaale u soo qaatay baaqyada xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ee ku saabsan in Yurubiyiintu ay kordhiyaan qarashaadka difaaca islamarkaana Mareykanku ay ka iibsadaan qalab ciidan oo dheeraad ah isagoo u arko inay muujinayaan isbeddelkan fikirka ah maqaalku waxa uu sidoo kale iftiiminayaa muhiimadda ay xusuusta taariikhda u leedahay sida ruushka u arko ammaankiisa isagoo xusuusanaya ruushka in taariikhdiisa casriga ah oo la kulmay duulaano isdaba joog ah ay ku xusuustaan kuwaasi oo ay ka mid yihiin duulaankii Napoleon ee sanadkii 1812 iyo howlgalkii Barbarossa ee Jarmalka Naaziga 1941 kaasi oo ahaa duulaankii militari ee ugu weynaa taariikhda dhacdooyinkan ayaana weli si qoto dheer ugu jira xusuusta qaranka ee ruushka isagoo markasta heegan ugu jiray ilaalin sidaas darteed ayuu ku doodayaa marka Moscow ay aragto dib u habeynta militari ee Yurub rakibidda nidaamyada gantaalada ridada dheer doodaha ku saabsan in ruushka si istaraatiiji ah looga adkaado iyo hadallada kale ee ku saabsan isku diyaarinta dagaal suurtagal ah marka la gaaro sanadka 2030 ay arrimahaasi u fasiran karaan iyagoo adeegsanaya waayo-aragnimadooda taariikheed halkii ay ku saleyn lahaayeen ujeedooyinka Yurub ay ku dhawaaqdo inay dagaal ku soo wajahan yahay sidoo qabo qoraawna waxay tani xoojinaysaa aragtida ruushka ee ah in Yurub ay isku bedelayso ismaaciil cadowtinimo la leh iyaga oo isku diyaarinaya dagaal ay la galaan waxaana uu sidoo kale tilmaamayaa isburinta istaraatiijiyadeed ee Yurub gudaheeda ka socota maalgashiga weyn ee Jarmalka uu ku sameynayo difaaca balaadinta ciidamada Poland iyo hindisayaasha midowda Yurub ee lagu xoojinayo warshadaha difaaca ayaa u sheegay inay ka turjumayaan walaac isa soo taraya oo laga qabo sida ay mustaqbalka uga go'an tahay Mareykanka damaanadda amniga ee Yurub inkastoo Yurub ay leedahay dad iyo dhaqaale isku darkooda ka weyn yahay kan ruushka Martinez waxa uu ku doodayaa in awoodda militari aysan ku xirnayn oo kaliya dhaqaalaha balse ay sidoo kale ku xiran tahay awoodda warshadaha saadka qaab dhismeedka taliska midaysan iyo isku duubnida siyaasadeed qaab dhismeedka difaaca ee Yurub weli yahay mid kala daadsan iyadoo ay jiraan nidaamyo hub oo kala duwan barnaamijyo wax iibsasho isbarbar socda iyo mudnaano qaran oo aan isku mid ahayn inkastoo hadallada siyaasadeed ee ku aadan wajahida ruushka ay kusii badanayaan qaaradda Martinez waxa uu ku doodayaa in Yurub ay weli ka maqan yihiin awoodo badan oo looga baahan yahay inay sii wado dagaal ballaaran iyadoo aan taageero weyn ka helin Mareykanka mustaqbalka caqabadaha ay ka mid yihiin qorista ciidamada kala daadsanaanta warshadaha difaaca iyo madaxbannaanida istaraatiijiyadeed ee xadidan ayaa weli caqabad ku ah heerka diyaargarowga militari ee guud ahaan Yurub sida maqaalka lagu xusayna farqiga u dhexeeya hadallada siyaasadeed iyo awoodda dhabta waa inuu horseedaa taxadar dheeraad ah ase yeeshee waxa uu ku doodayaa intaa beddelkeeda ay inta badan sababaan hadallo si adkaanaya taasi oo sii ballaarinaysa farqiga u dhexeeya dhibooyinka siyaasadeed iyo xaqiiqooyinka istaraatiijiyadeed iyadoo laga duulaya cashiro taariikheed waxa uu kusoo gabagabeeyey qoraaga qormadiisa in dagaalada waaweyn inta badan ay ka dhashaan ma aha hogaamiyaal si ulakaca u doonaya masiibo balse waxay ka dhashaan oo ay ka abuurmaan iyagoo u yaraysta halistay sii xumaan karta ee mustaqbalka buubuuninta awoodaha ay ku xakameyn karaan amaba inay u maleeyaan in cadowgoodu uu dib uga laaban karo waxaana uu ku doodayaa qoraaga in ruushka uu leeyahay quwad nukliyeer leh oo awood ballaaran haysata warshado militari siyaasado qoto dheer oo istaraatiiji iyo hoggaan u arkay iskahorimaadka inuu leeyahay reer galbeedka inuu yahay halgan jiritaankiisa la xiriira ayuu ruushka haystaa
qiimeynta martinis hadallada ee sii adkaanaya ee Yurub iyo ku wajahan Ruushka waxay halis gelin karaan mabaadi'da uu ku dhisnaa mashruuca nabadda ee Yurub isagoo gunaanadkii tilmaamay in caqabada ugu weyn ee muddada fog ee qaaradda aysan ugu dambeyn ka imaan karin Ruushka laftiisa balse ay ka imaan karto ka tagista qiimka ilaalinta nabadda diblomaasiyadda iyo iskaashiga markii hore saldhigga u ahaa isdhexgalka guud ahaan reer Yurub